waxaan rabnaa marka maanta inaan galno haddii alla idmo qodob aad muhiim u ah oo meesha aanu ka burburnay ah haddaanu nahay qoyskii Soomaaliyeed ee maanta jira ah oo ah hoggaaminta. Booska hogaaminta qoyska waa qodob aad iyo aad muhiim u ah. dhalin badan iyo dad badan oo maanta akhyaaraho reer maamulana aysan aad u fahamsanin. ummadaha maanta dhisan ee fashilmay ee burburay waxay u burbureen hoggaan xumo. kambaniyaasha baaba'ay aad maqashay inay fulgaroobeen ee businesskooda uu xumaadayna waxay u burbureen waxaa la yiraahdaa waa hoggaan xumo. business iska daaya school aan maamul iyo nidaam iyo qorshe haysan oo ku socdo ama higsanayana ma shaqayn karo. maxaad u maleynaysaan marka qoyskii mas'uuliyadiisii iyo hoggaankiisii qofka hadduusan gudanin ama uusan fahamsanaynba inuu asagu hoggaankii qoyska yahay oo mas'uuliyaddii uu og yahay inuu leeyahay laakiin hoggaaminta waxay u baahan tahay in la fahmo oo ah shaqo u baahan in la fahmo. bilaa calaykum dhammaan problemka maanta annagana haysta Soomaali haddaan nahay asal ahaan wuxuu noqonayaa hoggaan xumo. dhinac kastood ka fiirisid hoggaan la'aan buu noqonaya. waxaa laga yaabaa in laga fekerayo oo la fiirinayo war hoggaanka waxa u baahan dowladda qoys uma baahna. waa dhici kartaa inaad saas u fekeraysid laakiin waxaan rabaa maanta inaan isla fahamno qoysku inuu u baahan yahay hoggaamin toosan oo buuxisho booskiisa hoggaaminta. mashka casharkeenu maanta wuxuu ku saabsan yahay qaybtii labaad oon ku jirnay oo ahayd diyaargarowgii waan soo dhammaynay qaybtii wada dhaqmidda markaad soo gaadho buuxi booskaaga hoggaaminta. buuxi booskaaga hoggaaminta way casharkeenu maanta. hoggaamintaadu marka say u hagaagto ama ay sax u noqoto qoyskaaga waxaa loo baahan yahay qorshayaasha aad dhisaysidoo dhan inaad ku dhisto hiraal fog oo aad higsanayso oo targetka ama yool aad leedahay fog inaad haysato. haddaadan hiraal lahayn waxaad la mid tahay qof iska socda oo meesha u socda aan garanayn qofkii ka hor yimaada shaqadii ka hortimaadana qabanaya. haddaase qoyskaagu hiraal leeyahay oo yool oo higsanayo uu leeyahay waxaad qabsanaysaa waddo cad, waxaad haysanaysaa qorshe cad, waqtiga iyo sida aad uga faa'iidaysanaysana adaa googoosanaya oo waqtiga u habaysanaya. marka hiraalku waa laf-dhabarka maanta qoysaskeena ka maqan oo loo baahan yahay in la fahmo. in qoysku u baahan yahay qorshe iyo hiraal uu higsanayo oo ay ka wada hadlaan aabbaha iyo hooyada. qorshahaasna waxaa la rabaa inuu keeno aabbaha maadaama uu mas-uul reeri ka yahay. qof kasta markuu guursanayo ama xaas guursanayo wuxuu u baahan yahay oo maskaxdiisa qalbigiisa ku jirta wax baa ku fekeraya qalbigiisa ku jirta oo uu doonayo inuu gaaro. laakiin waxa qalbigiisa ku jira oo ku soo dhacdhacaya waxaa loo baahan yahay inuu intuu gaar u fariisto waqtina geliyo uu yidhahdo horta maxaan doonayaa inaan noqdo 20 sano 30 sano soo socda qoyskan. annaga waxaan ka hadlaynaa dhismaha qoys baraaraha. qoys waraara oo barwaaqo iyo nabadgelyo ku noolaada markaa ka fekeraysid waa inaad cabirtaa, waa inaad sahmisaa, waa inaad qiyaastaa 20 sano 30 sano soo socda qoyskan see waa kaan doonaa muxuu noqon doonaa haddii ilaahay ku daayo. waxaad ogaataa waxaa u dhaxaysaa waqti tegey iyo mid soo socda. waqtigii tegey haddaad ku mashquusho ood ka wadaacdo weligaa hore u socon maysa ama khalalaadkii aad soo gashay aad maskaxaada mar walba ay ku soo dhacaan. ilow wixii ku soo maray waa ku soo marayn ka gudub waqtigoodii bay ahaayeen. waqtiga soo socda oo ilaahay ku siiyey oo kugu soo socda saa uga faa'iidaysan lahayd gurigan aad dhistayna uu ku noqon lahaa guri waqtigaas ku gaara sida adigu aad jeceshahay yaa lagaa rabaa inaad samaysid. mana imaan karto oo arrintaa ma kuu suurageli karto ilaa aad fahamsan tahay hiraalka ama waxaa higsanaysid 20 sano 30 sano soo socda. hiraalku waa qorshe cad oo maskaxdaada ku sawiran oo aad fahmaysid meesha u socoto waxay ku dhamaanayso. dadka Soomaalida ah haddaad doonaysid dadka lugeeya inay safraan
markii safarka ay socdaan dabcan maskaxdooda waxaa ku jirta waxaad ka soo baxday xaafad magaalada muqdisho ka mid ah baabuur baa wadataa ama BL baad la socotaa waxaa u socotaa xaafad kale maskaxdaada markaa waxaa ku jira ama qalbigaaga ku jira meesha u socotay ee maskaxdaada ku jira nihaayatu safarkaaga hadda meesha u dambaysa waxaad doonaysaa inaad gaadho xaafad kana soo baxday xaafad maskaxda marka waxaa kugu korgaraysan safarkaagu inuu kogaya xaafadda safarka guurkood bilowday marka oo adiga maanta aad bilowday hadduusan dheeldheel iyo cayaart iyo maxaan ku yidhaha barnaamijyada horaan ka soo wada hadallayoo dee aan qoys dhumiskaa uusan ahayn oo qoys burburka kaga keeni uusan ahayn oo aad ka fakaraysid qoys saxan oo mustaqbalkiisu nidaamsan yahay walaac iyo walal ka badbaada qorshaysta waqti uu ku gaaro horumarkiisa waxaa khasaba inaad samaysatid hiraal aad doonaysid inaad gaadhid hiraalkaas ha noqdo xagga caafimaadka ha noqdo xagga dhaqaalaha ha noqdo xagga dadka ha noqdo xagga maxaan ku yidhaahdaa waxbarashada leannahu adiga waqtiga ma xukuntid intaa noolaanaysidna ilaahay baa og adigu ma ogid laakiin waxaa la rabaa waqtiga soo socda inaad ka faa'iidaysatid oo aad wax qabatid waxaa qabanaysidna inay yihiin wax aad ku gaaraysid waxaad degsatay oo aad maskaxdaada ku sawiratay oo mustaqbalka aad rabto inaad gaadhid casharkeenna maanta intaasuu noogu dhan yahay waa Cusmaan Sheekh oo idin leh wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh